taariikhdu markaad kun 879 waxa dhacday wiil yar oo 16 jir oo ka soo tagay tuuladiisa Yellow Beertaabi asagoo iimaanay magaalada lagu magacaabo Detroit waxay hadda waqtigaas waxa jirtay in dadku ay gaadidaan u isticmaali jireen oo kaliya tareenada Yellow fardaha ayadoona baabuurta farakutiriska ee waqtigaas ay isticmaali jireen oo kaliya dadka maalqabeennada ah waxay hadda laakiin mid uusan qofna ogeyn waqtigaas ayaa ah in wiilkaas yar ugu dambeyntii bedel doono guud ahaan caalamka baabuurta ayadoona isla muddo kooban gudaheed ay magaaladiisa noqon doonto mid laga isticmaalo kaliya baabuurtiisa waa si uu gacanta ku sameeyay haddaba sidoo Henry Ford ku dhisay mid ka mid ah boqortooyada baabuur ee ugu weyn dunida sidoo kale waa maxay xaqiiqada madow aysan dad badan ogeyn ka dambaysa guusha ninkan haddaba midan waa sheekada waalida ee Henry Ford mid ka mid ah geniuskii ugu weynaa ee dunida soo mara haddaba qisadeena ayaa soo bilaabanaysa taariikhda markay July 3 1863 waqtigaasoo uu dhashay wiilka lagu magacaabo Henry Ford kaasoo ku dhashay tuulo yar oo lagu magacaabo Dearborn oo ku taal waddanka Mareykanka gaar ahaan Michigan sida yaataba Henry Abi oo lagu magacaabay William Ford ayaa ahaa nin beeraley ah beertaasoo familka oo dhan waa mid ku noolaa isla markaasna qof walba ka shaqeynayay oo familkan Henry ayaa ahaa ku aan ganacsi kala lahayn aan ka ahayn beertaasoo kaliya ayadoona dhanka kale uu Henry ahaa wiilka ugu weyn 5 caruur oo asaga la dhalatay halkaasoo bari ka maalin uu ahaa dhaxal sugaa beertan iyo midkii la wareegi lahaa mas'uuliyadda familkiisa Yellow beertii laakiin Henry ayaa dhankiisa mid aan haba yaraatay wax danayna waa inuu noqdo beeraley sida Abi oo kale walow yaraanka Henry waa mid ka shaqeeya isla markaas garab siiyay Abi haddana sidaas ay tahay Henry ayaa mid aad u necbaa ka shaqeynta beerta familkiisa dhanka kale Henry ayaa sidoo kale yaraantiisa mid sidaas la mid aad u necbaa tagay iskuulkiisa Yellow waxbarashada midaanoona kalifteen Henry uusan weligiiba ka gudbin kalaaska 8aad asagoo aaminsanaan waxbarashada noocan ay tahay mid waqti lumisa laakiin haddana ninkan ayaa mid asagoo iskii jeclaa inuu wax isku baro asagoo aad u akhrin jiray buugaagta sidoo kalena sameyn jiray mashiinada yaryar haddaba waqtigii yaraantiisa Henry ayaa mid jacayl buuxo u qaaday mashiinada Yellow wax sameynta halkaasoo uu ahaa mid barta sida loo sameeyo loona hagaajiyo waxyaabaha mashiinariga ah sida yaataba Henry markuu jiray da'da 12 sano Abi ayaa mid hadiyad ahaan u siiyay saacada jeebka waqtigaas la isticmaali jiray intaas kadib Henry ayaa mid dhinac walba ka bartay saacadan sida ay u shaqeeyso sida loo sameeyo wax walba oo ku saabsan saacadanba heer ugu dambeyntii uu gaaray inta uu kala furfur saacadan weliba asagoo u kala dhigdhigay mid uu haddana ahaa mid isku keenay muddo daqiiqada yar ah asagoona markiiba deegaankiisa aqoonsi ka yeeshay iyo inuu yahay saacad sameeyo loo keenay saacadaha xumaaday oo dhan si uu isla markaas u hagaajiyo Henry markuu gaaray da'da 13 sano waxaa dhacday in markan uu la kulmo khibradii noloshiisa oo dhan bedeli lahayd kadib markii uu Henry la safray Abi kaasoo u socday magaalada lagu magacaabo Detroit haddaba Henry ayaa mid safarkiisan kula kulmay mashiinkiisii ugu horreeyay ee dhaqaaqa mashiinkaasoo ah cagaf asagoona markiiba Henry naftiisa ka ballan qaaday in maalin uu sameyn doono baabuur noocan oo kale ah halkaasoo riyadiisii ahayd baabuur sameynta ay maalintaas toos u bilaamatay laakiin nasiixum isla sanadkaas waxa sidoo kale Henry soo wajahday geeridii ugu xanuunka badnayd ayadoona waqtigaas ay halkii ku geeriyootay hooyadii macaan geeridaasoo Henry xanuun aad u weyn ku reebtay intaas kadib Henry ayaa mid noloshiisa baadiyaha markan aad u siinaa ayadoona noloshan beerahan ay gebi ahaanba ka hor timaaday halka dhanka kalena waqtigaas bilowday dagaalkii u dhaxeeyay Henry iyo waliba Abi kaasoo aaminsanaa in Henry uu noqon doono midkii la wareegi lahaa beersan maadaama uu asagu yahay curadkii xaafadda laakiin Henry ayaan ahayn mid waxaasoo dhan rabay ayadoona kadib markii uu sii xogeystay dagaalkii Henry iyo waliba Abi uu Henry ahaa mid gebi ahaanba iskaga tagay gurigiisii iyo tuuladii waliba asagoo waqtigaas jiray oo kaliya da'da 16 sano halkaasoo uu jahaysay magaalada lagu magacaabo Detroit taasoo uusan haba yaraatay waxba uga horeynin waxay yaataba magaalada lagu magacaabo Detroit ayaa waqtigaas ay mid aad u soo koreysay ayadoona warshadaha magaaladan ay ahaayeen ku xawli ku socday oo waxaa dhacaysay warshadaha tirada badan ay u baahnaayeen shaqaale iyo waliba injineero da'yar kuwaasoo ka shaqeeyay warshadan waana meeshan uu Henry fursadiisa ka dhaxraasan doono asagoona isla markii uu tagay magaaladii bilaabay inuu markii hore sii hormariyay xirfadiisana mashiin sameynta intaas kadib Henry ayaa mid shaqo ka helay company baabuur sameyn oo lagu magacaabay Michigan Car Company laakiin nasiixum isla 6 maalin kadib Henry ayaa mid shaqadiisa markiiba laga cayriyo halkaasoo uu soo istaagay shaqalaan muddadii xigtay oo dhan ilaa ugu dambeyntii mar kale shaqo ardaynimo ka helay company lagu magacaabay James Flowers and Brothers halkaasoo uu ka qaadanayay lacag gaadhaysa $2.60 toddobaadkii laakiin haddana sidaas ay tahay lacagtan ayaan ahayn mid Henry ku filnayd inuu ku noolaado magaaladan sidan weyn oo lacagtan ayaan xitaa ahayn mid ku filnayd kiradiisa intaas kadib Henry ayaa markale la raadiyay shaqo kale oo ka shaqeeyay habeenkii halkii uu ka helay company kale oo hagaajiyay saacadaha iyo waliba jewelry-ga meeshan uu ka qaadan doono lacag gaadhaysa $3 toddobaadkii dhanka kale inkastoo Henry ahaa mid habeen iyo maalinba shaqeeya haddana sidaas ay tahay ninkan ayaa midaan haba yaraatay joojin barashada uu baranayay mashiinada asagoona waqtigeer uu helo waa mid kaga faa'iideysan xirfadiisa mashiin sameynta uu sare u qaado intaas kadib isla muddo sanadaha kadib taariikhda markaad 1882 markii uu Henry ahaa 19 sano waxaa dhacday in markan Henry uu ahaa mid u soo laabtay familkiisii iyo waliba tuuladii asagoona waqti xadarkan ahaa mid xirfadiisa mashiin sameynta ay tahay mid sare u kacday halkaasoo uu go'aansaday inuu xoogaa u joogo beertiisa walow sidaas ay tahay uu necbaa ka shaqeynteeda
laakiin haddana Henry ayaa ahaa mid ka shaqeeya mashiinada yaryar ee beerta halkaasuna uu ahaa mid waqtigiisa inta ugu badan ku lumiya samaynta mashiinadaas heer markii dambe ay dhammaan beeraleydii kale ay u keensadaan Henry mashiinada ka xumaada si uu isla markaas u sameeyo ayaduna muddo kooban buu halkii ku noqday mashiin sameeya dhaba kaasuna aaga Michigan oo dhan laga yaqaano waxay haddaba kadib markii uu Henry hadalkiisii fiday iyo in ninkan uu yahay mashiin sameeya xirfad leh waxaa dhacday in wakiil ka socda kambani sameeya mashiinada noocyadiisa kala duwan oo lagu magacaabay Westinghouse uu Henry shaqo u soo bandhigo shaqadaasuna ahayd in Henry uu u sameeyo shirkaddan mashiinada ka xumaada halkaasuna muddadii xigtay oo dhan uu Henry ahaa mid mashiinada ka sameeya Michigan iyo weliba qaybo ka mid ah Ohio halka dhanka kalena uu Henry ahaa midaan marnaba ilaa warridiisii ahayd inuu mar uu sameeyo baabuur ku shaqeeya mashiinka uumiga asagoona mar walba isku dayay muddadaas oo dhan sidii uu hirgelin lahaa mashruuciisan laakiin nasiib xumo uu ahaa mid ku guul darraysta walow uu isku dayo badan samaynayay ayadoona riyada inuu sameeyo baabuur ku shaqeeya injinka nooca uumiga ah ay ahayd riyo aan marnaba macquul galahayn ugu dambeyntiina kadib markii uu Henry ku dhawaaday inuu iska dhiibo riyadiisan waxaa dhacday in maalmaha ka mid ah uu kambani ka codsaday in Henry uu hagaajiyo injinyadooda injinyadanuna ahaa injiyo ku shaqeynaya gaaska kuwaasoona marka loo barbardhigay injinyada kale uumiga ahaa kuwa aad u xoog badnaa ayadoona Henry uu markiiba ahaa mid la cajabay injinyada noocana halkaasuna uu markiiba Henry ahaa mid niyadiisa geliyey in hadda uu helay injinkiisii ku habboonaa baabuurkiisa uu samayn doono intaas kadib Henry ayaa ahaa mid markan u laabtay magaaladiisii hore ee Detroit si uu halkaas si wanaagsan ugu bartay injinkan gaaska iyo weliba qaabka uu u shaqeeyo midaanuna ahayd go'aankiisii ugu wanaagsanaa uu qaato waqtigaas oo Henry ayaa ahaa mid markiiba ka shaqo bilaabay kambani samayso uu lahaa ninkii lagu magacaabay Thomas Edison ninkanuuna mustaqbalka Henry wax badan ka bedeli doona ayagoona ugu dambeyntii labadan nin saaxiibo isku dhow noqon doona kuwaasuna sida aan arki doono waxyaabo badan wada ikhtiraacaa waxay haddaba Henry ayaa markiiba ahaa mid la qabsada shaqadii kambaniga halka dhanka kalena uu ahaa mid waxyaabo badan ka bartay injinkii ahaa gaaska ilaa ugu dambeyntii uu kambanigii ka noqday chief engineer mushaarkiisuna uu gaadhay $80 toddobaadkii halka dhanka kalena uu mashruuciisana ahaa mid dhinaciisa ka wata ilaa ugu dambeyntiina uu Thomas Edison ahaa mid Henry ku dhiirigeliyay mashruuciisan asagoona uu sheegay in garab buuxa uu ku siin doono riyadiisan dabcan qofkaan garanaynin ninka uu yahay Thomas Edison Thomas waa ninkii ka dambeeyay ikhtiraacida leerkan aan maanta adeegsano oo ninkan ayaa ahaa mid ka mid ah injineeradii ugu waaweynaa ee dunida soo mara taariikhdu markaad 1888 Henry ayaa mid markan guursaday lamaantiisa lagu magacaabay Clara taasoo isla 5 sano kadib taariikhdu markaad 1893 u dhashay wiilkoodii ugu horeeyay lagu magacaabay Edsel sidoo kale waa wiilkii ugu dambeeyay ee Henry dhalay sidoo kale isla sanadkaas ugu dambeyntii dadaal dheer kadib taariikhdu markaad 1893 Henry ayaa mid markan gacantiisa ku dhisay mashiinkiisii ugu horeeyay ee gaas talaabadanuna u dhaweysay riyadiisa inuu sameeyo baabuurkiisii ugu horeeyay intaas kadib 3 sano ee xigtay oo dhan Henry ayaa mid habeen iyo maalin buu shaqeeyay uga dhawayn lahaa riyadiisa inuu mar uun dhiso baabuurkiisii ugu horeeyay halkaasuna ahaa mid isticmaala wax allaale wixii uu heli karay waqtigaas ilaa ugu dambeyntiina laga soo gaaray 4 Juun 1896 markaasuna ugu dambeyntii ahaa mid ku guulaystay hamigiisii intaasoo dhan u soo dadaalayay halkiina ugu dambeyntii ku soo saaray baabuurkiisii ugu magacdaray quadricycle ayadoona baabuurkan markii ugu horeeyay la kaxeeyay subaxnimadii 4 Juun 1896 nasiib wanaagna baabuurkan ayaa ahaa mid aysan haba yaraatee waxba ka qaldanayn asagoona caadi u soconay sidoo kalena waqtigaas ka mid noqday mid ka mid ah baabuuradii ugu xawaaraha sareeyay waqtigaas oo xawaaraha baabuurkan ayaa ahaa mid gaadhay 20 mayl saacadiiba walow qalabka laga sameeyay uu ahaa qalab isku keenkeena iyo weliba taayirada baaskiilka intaas kadib Henry ayaa mid baabuurkiisan ku iibiyay lacag gaadhaysa $200 halkaasuna isla markiiba mid lacagtan mar kale ku dhisay baabuurkiisa xigay baabuurkaasuna asna qaatay muddo 2 sano ah waxyaabo waa markan markii uu Henry si toos ugu soo jeesaday mashruuciisan baabuur samaynta ah asagoona rabin gebi ahaan shaqooyin kale oo faraha ka qaado si uu isla markaas waqtigiisa oo dhan ugu bixiyay kaliya mashruuciisan laakiin hal dhibaato ayaa jirtay dhibaatadaasuna ahayd in ruusanaysan haba yaraatee wax lacag oo ku filan taasuna uu si toos ugu shaqagelay ama uu ku asaasan karay kambanigiisa u gooniya ayadoona isla markaas u baahnaa maalgeliya isla markaasna ku taageeray riyadiisan asagoona markii uu bilaabay inuu ka howlgalo sidii uu heli lahaa maalgeliyayaashaas ugu dambeyntiina dadaal dheer kadib Henry ayaa gacanta ku dhigay 12 maalgeliyayaal kuwaasuna ninkan ku maalgashtay lacag isku darkeedu gaadhay $15,000 lacagtanoona Henry ku filnaysa ugu furtay kambanigiisa cusub ee uu magacdari doono Detroit Automotive Company taariikhdu markaad 1899 kambanigaasuna isla asagu ka noqon doono chief engineerka haddaba waqtigaas waxaa jirtay in kambaniyo badan ay soo saarayeen baabuurta noocyadooda kala duwan laakiin dhibaatada ayaa in baabuurtaas ay ahaayeen ku aad qaali u ah isla markaasna loogu talagalay oo keliya dadka maalqabeennada ah oo waqtigaas baabuur marka la maqlaba waxaa la
la aaminsanaa in loogu talagalay oo keliya dadka maalqabeennada ah isla markaasna aadka hantida u leh maadaama ay ayaga keliya isticmaali jireen ayadoona Henry uu markaa rabay qaacidadaas in gebi ahaanba uu saas ka bedelo isla markaasna uu sameeyo baabuur kuwaas la mid ah laakiin ka raqiisan isla markaasna uu qof walba iibsan karo waxay haataba laakiin maalgeliyaashiisa ayaan ahayn kuwa ku qanca fikradan Henry Ford ayagoona maalgeliyaashan isku rabeen Henry uu soo saaro baabuuro tiro badan isla markaasna uu baabuurtaas ka iibiyo dadka lacagta leh si ay isla markaas ayaga faa'iido badan ugu soo laabato midanuuna Henry uu cuntam weeday dabcan inkastoo Henry ah mid ku fiicnaa sidoo kalena aad ugu wanaagsanaa dhisida baabuurta haddana dhanka kale Henry ayaa mid markay timaado businesska aad ugu xumaa sababtaas awgeedna ugu dambeyntii 1901 waxaa dhacday in markan ay albaabadu laamaan kambanigii baabuur ee Detroit Automotive Company maadaama uu kambanigu waqtigaas la kulmay faa'iido darro iyo inuu isku wadi waayay soo saaridda baabuur tayo leh kuwaasoo lagu soo saaray waqti kooban oo waxaa dhacaysay in ka shaqaynta hal baabuur ay Henry ku qaadanaysay waqti aad u dheer intaas kadib markii Henry albaabada u xidhay kambanigiisii hore waxaa dhacday in Henry weli haamidan Steven asagoona weli haamid rabay ganacsigiisii baabuur samaynta haddaba Henry ayaa weli haamid asxaab ku lahaa magaaladiisa Detroit asxaabtaasuna u badnaa ganacsato ayadoona qaar ka mid ah asxaabtaas ay Henry u galaadeen inuu isticmaalo bakharadooda ay ayagu lahaayeen si uu ninkan ugu meel gaadho ayadoona markan uu Henry helay xurriyad taasuna isla markaas uu kaga fikir karo wuxuu samayn lahaa maadaama aysan waqti xadarkan dabada ka wadin maalgeliyaashii isla markaasna uu markan keligii yahay wuxuu raban uu samayn karo waxay haataba Henry ayaa hadda go'aansaday inuu dhiso baabuurkiisa qaasay weliba nooca tartanka ah maadaama waqtigaas baabuurta tartanka ay ahayn kuwa markiiba magac soo jiiday halkaasuna Henry ah mid fursadan ka faa'iideysta asagoona isla 1901 soo saaray baabuurkiisa ugu horreeyay tartan baabuurkaasuna nasiib wanaag markiiba Henry uu soo hoyay guulaan inuu macquul ahayn guushaasuna aydin baabuurkan uu ku guuleystay tartan tumo wareega oo ka dhacay magaalada Detroit ayadoona intaas kadib uu baabuurkan marar badan Henry uu soo hoyay guulaan inaba caadi ahayn midaanoona markiiba Henry kalsoonidiisa dib u soo celisay ayadoona markan uu Henry magac weyn ka yeeshay caalamka tartanka iyo waliba guud ahaan kambaniyada baabuur sameynba halkaasuna ayba mar kale qaar ka mid maalgeliyaasha hore ay ninkan dib ugu soo laabteen iyo si mar kale ay ninkan u maalgeliyaan maadaama ay arkeen ninkan heerka uu gaari karo dabcan waxa dhacday mar kale Henry halkii ku helay maalgeliyaal badan kuwaasoo garab ku siiyay ninkan uu mar kale dhisay kambani baabuur cusub kaasoo ku soo saari doona baabuurta halkaasoo ugu dambeyntii ku dhisay kambanigiisa la magac baxay Henry Ford Company laakiin waqti xadarkan hal dhibaato kale ayaa jirtay dhibaatadaasuna ay Henry uusan markan waxtan inuu buuxdo u haynin soo saaridii baabuurtii caadi ahayd ayadoona ninkan uu markan aamin niyadiisa oo dhan u jeediyay dhankii iyo baabuurtii tartanka oo Henry ayaa mid markan ka fikir oo kaliya qaabkii uu baabuurtiisa tartanku u horumarin lahaa isla markaasna uga dhigi lahaa kuwa aad u xawaara sareeya halka dhanka kalena soo saaridii baabuurtii kale uusan ba isku mashquulinin midaanoona markale maalgeliyaashii aad uga cadhaysiisay iyo in ninkan uusan baahaynba faa'iido doon midaanoona markiiba dhalsin maalgeliyaashii ay markale hawada ku cunaan ninkii lagu magacaabay Henry Ford ayagoona markiiba bilaabay inay ka cadhiyaan kambaniga isla markaasna ay booskiisii ku bedelaan nin kale waxay haatan saaxiibayaal haddii aad ka hesheen muuqaalada noocan oo kale ah fadlan xuraha inaad nagu soo biirto sidoo kalena channelka subscribe saarato si aad isla markaas u hesho muuqaalada aadka u xiisaha badan ee aan kusoo gudbino channelkan aan gudagalno muuqaalkeenan dabcan Henry ayaa ahaa mid saas ku qanacsanaa oo ninkan ayaa ahaa mid aad u nacay amarka iyo waxa uu sameyn lahaa loo sheego halkaasoo uu go'aan ku qaatay inuu sanfuligi cimrigiisa inta ka dhiman uusan ku shaqeynin amarka qof kale aan ka inuu kaliya naftiisa kaliya uu amarka qaato ayadoona kadib markii Henry laga caydiyay kambanigii ay asaasayaasha hayeen kuwa magacii ka bedelay oo u bixiyay magaca Cadillac kambanigan baabuurona ah ilaa maanta mid jira isla markaasna soo saara baabuurtiisa qaaska halka dhanka kalena Henry ah mid dhankiisa ka sii wata sameyntii baabuurtii tartanka ayadoona taariikhda markii 1902 uu halkii ku soo saaray baabuurkiisa tartan ee iconic noqday baabuurkaasuna magaciisu ahaa Ford 39 kaasuna horse baabuurkiisu gaadhay 80 taariikhda markii 1904 Henry ayaa ahaa mid markan dhisay baabuurkiisa jabiyay dhammaan records-kii Mareykanka baabuurkaasuna xawaarihiisu gaadhay 91.4 mayl saacadiiba ayadoona waqtigaas uu Henry noqday mid aan haba yaraatay waxba laga qaban karin guulahaas iyo rekoordadaasuna ugu dambeyntii ninkan ka dhigay waqtigaas in loo aqoonsado baabuur sameeyaha tartan ee ugu wanaagsan guud ahaan Mareykanka intaas kadib markii Henry markan helay sumcadaas oo dhan ninkan ayaa mar kale go'aansaday inuu dhisay kambanigiisa saddexaad ahna kii ugu dambeeyay kambanigaasuna ugu magac dari doono Ford Motor Company haddaba Henry ayaa weli ahaa mid ku taagnaa go'aankiisii hore ee ahaa inuu dhiso baabuur tayo leh kuwaasuna aan loogu talagelin oo kaliya dadka maalqabeennada ah isla markaasna ka dhexeeya dadka kale waxay haataba Henry kambanigiisa cusub ayaaba markiiba halkii ku soo saaray baabuurkiisii ugu horreeyay kaasuna lagu magacaabay Model A baabuurkaasuna isla markiiba mid lagu iibiyay lacag gaadhaysa $750 weliba isla toddobaadkan ka hor dhalashadii afartanaad ee Henry sida haataba dhanka kale Henry ay weli daba socotay dhibaatadii ahayd in soo saaridii baabuurtiisana waqti dheer qaadanayeen weli waqti xadarkan ay kambanigiisan ka shaqeynayeen shaqaale badan kuwaasoo garab ku siinayay dhisida baabuurtiisan intaas kadib Henry ayaa markan bilaabay raadintii xalkaas asagoona markiiba helay idea aad u soo jeedisay taasoo uu ka keenay goobaha kawaanka ee xoolaha lagu qalo ayadoona haddii uu ideadan u adeegsado inuu ku dabaqo warshadiisan sida ay u shaqeyso ayba markan soo saari karaan baabuur aad u badan
halka markii hore ay ahayd hal baabuur oo keliya shaqaalaha oo dhan ahaayeen kuwa ka shaqaynayay oo markan qof walba waxay dhacaysa in baabuurku booskiisa ugu yimaado si uu waxa ugu dar lahaa uu ugu daro halka shaqaduna ay ahayd mid sidaas ku daba soconayso oo inta hal baabuur laga wada shaqayn lahaa markan waxay dhacaysa in baabuur badan hal mar laga wada shaqeeyo kuwaasoo la isku daba xijinayo ugu dambeyntiina dhammaadkii 1904 Henry ayaa mid markan faa'iidii oo dhan dib ugu maalgeliyay warshadii asagoona halkii ku dhisay warshad aad u weyn halkiina uu soo shaqageliyay shaqaale ku dhaafay 300 oo shaqaale kuwaasoo si maalinle uga shaqaynayay kambanigaysan waxyaata warshadan cusub iyo waliba fikradan oo la isku daray ayaa markiiba Henry wax soo saarkiisa ka dhigay mission jibaarinta oo waqti xaadirkan warshadiisan ayaa soo saaraysay baabuur tirada ka badan isla markaasna waqti aad u kooban lagu soo saarayo intaas kadib Henry ayaa mid markan dhisay warshadiisa kale ee qalabka taasoo uu ku soo saaray wax walba oo baabuurku u baahan yahay ha noqoto injiinka baabuurka iyo dhammaan qalabyada kale ee kala duwanba midaanoona shaqada sii fududeynaysa maadaama waqti xaadirkan shaqada dib loogu dhigay in qalab meel kale laga keenayo haddaba ku dhawaad 3 sano oo Henry mid soo saaray baabuurkiisa model eega Henry ayaa markan soo saaray baabuur kale cusub kaasoo lagu magacaabay Model T baabuurkan oo waqtigaas noqday mid kamid ah baabuurkii ugu wanaagsanaa sidoo kalena loogu iibsiga badnaaba taariikhda baabuurkan oo ugu dambeyntii noqday mid guushiisii laba jibaarayba taariikhdu markaad 1914 Henry kambanigaysan ayaa ku iibinay baabuur ka badan dhammaan marka la isku daray kambaniyada kale soo saaray baabuurta Mareykanka waliba siday u dhan yihiin ugu dambeyntiina wadooyinka magaalada lagu magacaabay Detroit taasoo Henry mid soo galay asagoon haba yaraatay waxba haysanin ayaa markan isu bedeshay mid ay socdaan oo kaliya baabuurtiisan oo soo gacanta ku dhisay ayadoona luuq walba aad gashaad ku arkaysay baabuur sameeyay Henry Ford danka kale kadib markii uu Henry suuq aad u weyn yeeshay waxa dhacday in markan uu baabuurtiisan qiimo dhimis aad u weyn ku sameeyo ayadoona Henry uu aaminsanaa in qiimo dhimisan ay soo xareyn karto macaamiil kale aad u badan kuwaasoo gatay baabuurtiisan dabcan sidaas ayaa dhacday ayadoona inta la joojin soo saaridii baabuurkii lagu magacaabay Model T oo baabuurkan mid la iibsaday in ka badan 15 milyan oo xabo haddaba in kasoo Henry waqtigaas mid wax badan ka bedelay casriga baabuurta haddana waxa dhacaysa in ninkan shaqaalihiisa kala shaqeynaya baabuurta ay dibsadaan ka shaqeyntii warshadiisa baabuur ee Ford ayagoona waqtigaas ay shaqaalaan dareemeen nooc guumaysiya iyo in la shaqeynta ay la shaqeynayaan ninkii lagu magacaabay Henry ay tahay mid aad u adag halkaasoo ay shaqaalaan bilaabeen in iskaga tagaan warshadii Henry ayagoona shaqo raadsanay shirkadaha kale ee baabuur sameyn haddaba si Henry u qanciyay shaqaalihiisan Henry ayaa markan shaqaalihiisa u soo dejiyay sharciyo kale oo hor leh sharciyadaas cusub oo ku qancinayay shaqaalihiisan ayadoona ninkan uu bilaabay in mushaarkii shaqaalihiisan uu laban laab uga dhigo halkaasoo ay ku shaqeynayaan maalintii lacag gaaraysa $5 halka ay awal ku shaqeyn jireen oo kaliya $2 iyo badh mushaarkaasoo kii ugu badnaa waqtigaas ee qof shaqaalaha si maalin la ugu shaqeeyo midaanoona dhalisay shaqaale badan oo xirfadlayaal ay saf u soo galaan Henry iyo shirkadiisa Ford intaasoo kaliya ma aha sidoo kale Henry ayaa bilaabay shaqaalihiisa oo ka kala yareeya saacadihii badnaa ay shaqeyn jireen ayadoona markan ay shaqaalu shaqeynayaan kaliya 8 saacadood halka sidoo kalena uu dhisay shiftiye kale si ay shirkadiisa u shaqeyso 24 saac ayadoona dhammaan shirkadii kale ee waqtiga jiray ay ku qasbanaadeen inay qaataan jadwalkii Henry kaasoo ay shaqaalu ay shaqeeyaan kaliya 8 saacadood oo Henry ayaa shakhsiyaadkii ugu horeeyay kana sharciga 8 saac kaasoo ilaa maanta la adeegsado casrigan cusub danka kale Henry ayaa mid shaqaalihiisa inta soo galeetiga isla markaasna si fiican u aqoon Ingiriiska oo furgoobo waxbarasho ay wax ku bartaan goobahaasoo uu ku barayo luqadda Ingiriiska iyo waliba waxbarashada kale ee basic waxaasoo dhan uu Henry mid qabta shaqaalihiisan waxa dhacday inay aad u xanaajiyaan maalgeliyaashii ninkan heer maalgeliyaashaas ay u bilaabaan inay u sheegaan maxkamadda la tiigsan doonaan haddii uusan isla markaas joojin mushaarkan tirada badan uu siinay shaqaalihiisan dabcan Henry ayaa midaan markan u dulqaadan karin in kambanigaysan uu intaasoo dhan soo dhisay si fudud lagaga wareejiyo sida kuwii hore oo kale asagoona markan sameeyay arrinkooda yaabiya dhammaan maalgeliyaashii kale arrinkaasoo in markan uu iibsado sheerka inta ugu badan ee kambanigaysa asagoona sheerkaas gelinaya lacagtiisa oo dhan si uu isla markaas u soo ceshtay awoodda inta ugu badan ee kambanigaysan waxyaataba ugu dambeyntii taariikhda markaad 1919 Henry ayaa mid markan maamulkii kambanigaysa ku wareejiyay wiilkiisa lagu magacaabay Edsel laakiin sidaas ay tahay Henry ayaa weli mid gadaalka maamulka kambanigii asagoona qofka go'aanada inta ugu badan ka sameeyay kambanigaysan walow wiilkiisan madaxweynaha meeshan ka dhigay dabcan waqtigaas uu Edsel mid hayay hogaankii kambaniga waxa dhacday in wiilkan uu marar badan isku dayo inuu wax ka bedelay kambaniga isla markaasna wax cusub ku soo kordhiyo laakiin Henry ayaa mid gebi ahaan badiday qorshayaashan wiilkiisa ayadoona Henry uu mid marar badan wiilkiisan ka diiday qorshayaal lagu soo saaray baabuur cusub kuwaasoo ka duwan kuwii hore ay soo saareen oo Henry ayaa waqtigaas mid aaminsanaa oo kaliya in customerkiisa ay u baahan yihiin oo kaliya noocii baabuur lagu magacaabay Model T dabcan Edsel ayaa mid markan abiyi ka saxsanaa ayadoona sanadba sanad ku sii uu baabuurkii lagu magacaabay Model T uu ahaa mid iibkiisii uu dhulka galo ayadoona dadku ay hayeen ku rabeen model cusub iyo waliba sidoo kale baabuur hor leh kuwaasoo casriga la socda
ugu dambeyntiina taariikhda markaad 1927 Henry ayaa markan iska indhatir waayay khasaaradii kambanigaysan asagoona markan amray in la soo saaro model cusub baabuurkaasuna ah version cusub oo new model ah laakiin waqti xadirkan ay Ford ay mid soo saarta baabuurkeedan cusub Ford ayaa waqtigan ay mid hoos u soo dhacday kaalinta saxaad ee kambaniga baabuur sameeyay ugu weyn bartamaha Mareykanka ayadoona hogaankii markan lagala wareegayba waxyaata ugu dambeyntii 1943 Henry wiilkiisa lagu magacaabay Edsel Ford ayaa mid geeriyada xanuunka kansarka caloosha halkii Henry Ford uu asnaa mid sanadii run ka dambeeyay wiilkiisa asagoona asnaa halkii ku dhintay taariikhda markaad 1947 waliba soo waqtigaas jiridada 83 sano halkaasuna hogaankii Ford qabtay wiilka uu Henry Ford uu ahaa kaasuna hogaanka ilaa laga soo gaaray 1979 intaas kadib kambaniga Ford ayaa mid sanadii xigay oo dhan ay soo maraan hogaamiyaal kale oo aad u tiro badan kadib aasaasyaashii dhabta ah laakiin weli haddana kambanigan ayaa mid guulo badan xaqiijiyay sanadadaas ayagoona waqtigaas soo saaray baabuur lama ilaawaana kuwaasuna caalamka gelgelay laakiin haddana Ford ayaan ahayn mid qabsata caalamka sidii markii hore uu noolaa Henry Ford ninkan oo dhab ahaantii ahaa genius aad u caqli badan isla markaasna lahaa hibo iyo weliba wax soo saar walow dhanka kale ninka lagu magacaabay Henry Ford oo nin aan aad loo amaanin isla markaasna mid u buuxiyay nacayb aad u tiro badan kaasuna dhibaatooyin aad u badan laga sheegtay waxyaataba kambanigiisan uu ka tagay lagu magacaabo Ford ayaa maanta ah mid ka mid ah kambaniga baabuur ugu weyn dunida ayadoona kambaniga lagu qiimeeyay qiimo kordhaaf 45 bilyan oo dollar halkaasuna ay ilaa maanta soo saaraan baabuur aad tayo u leh dabcan midaan la ilaawi karnayaa in waxaas oo dhan soo bilaabay cunug yar oo beeraley ah kaasuna aan haba yaraatay waxba haysanin aan ka hayno kaliya rabitaan uu rabay inuu mar uu soo saaro mashiin ugu dambeyntii inuu riyadiisii ka rumeeyay haddaba maxay kula tahay sheekadan waalida Henry Ford sidoo kale waa maxay cashirkaad ka bartay qisadan xiisaha badan haddaba saaxiibayaal haddii muuqaalku cajab geli fadlan ay leeyahay like saarto muuqaalka iyo mid ugu muhiimsan waa inaad notification-ka furato si isla markaas aad u hesho muuqaaladan xiisaha badan aan ku soo gudbino channelka adigoona sidoo kale ka wardoonay muuqaaladii hore ee xiisaha badan aan ku soo gudbino channelka haddii aadan hore u soo daawanin ku dhufo thumbnail-da shaashada kaaga muuqan doona halkaas ayaa noo balana